Okay. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore subax wanaagsan saxaafadda waanu salaamaynaa salaadka islaamkaanu ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Noofembar xuquuqdooda dastuurigaa qaatay ee codeeyey codayn xoor ahayd oo ay u soo banbaxeen sidii ay ugu dul qaateen ee u codeeyeenna waan uga mahadnaqaynaa. ilaahay baa mahadda leh subxaanahu wa tacaala, isagay mahadoo dhan u dhan tahay. ilaahay nagu ilhaamiyey inaynu maanta qaranka somalilan uu taagan yahay meel wanaagsan. waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye cabdiraxmaan sharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood. waxaanu u wargelinaynaa dacweynahana u sheegaynaa inuu nagu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afgarannay qodobadii aanu ka wada hadlaynay. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye cabdiraxmaan oo jeclo badan ka leh qarankan, furaalana u sameeyey qarankan, ahna mudan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaanku taagan yahay. dalnahay komishinka qaranka somalilan waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay 2 maalmood siduu noogu dul qaatay, siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu u turayo dalkan iyo dadkanba. si degan waayo aragnimo leh ayuu cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax cabdiraxmaan oo la qaatay arrimihii aanan maxayda u falanqaynay waana ku gaadhay. kow aan buuggii oo degmada berbera ee ahaa buuggii codaynta waanu ka shaafinay, waananu isla qaadanay, waananu ka heshiinay, waananu u sharaxnay, waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba. waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka maroodi jeex kaas ahaan degmada gabiley iyo degmada hargeysa ay sidoodii u socdaan. taana waanu isla qaadanay, shaqadiina way noo soconaysaa. sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa. waanad mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام يا جماعة شعب somaliland. waxaan ka warqabnay in xisbiga wadani uu u sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqibintii ka joogtay ama howlgaladii ka joogay xisbiga komishinka qaranka ay joojiyeen, isagoo markaa qabanaya cabashooyin iyo codsiyo u soo gudbiyey komishinka qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin. sidaa daraaddeed komishinka waa wada hadlaynay 2 cisho soo socday. waxaan u mahadnaqaynaa runtii duqaadkay muujiyeen. waxaan isla garanay oo ku soo gunaanay in la dhegaysto dalabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka maroodi jeex
Jubilee iyo degmooyinka iyo degmada Hargeysaba dalab ayaa ku saabsan gobollada kalena in qoraal ahaan aan ku gudbinay insha Allah jawaabna aan ka sugi doono commissionka haddii Ilaahay ka dhigo waxaan isla garanay in soo celinno si loo sii wado tirada guud ee gobolka Maroodijeex labada degmada Gabiley iyo degmada Hargeysaba waxaa kaloo hadda saa ka warqabtaan arrinta ku saabsan adduunka halduunko galay gacanta xisbiga shacbigana soo bandhignay commission maalintii waxay jawaabta bixiyeenna waa weydiiyeen laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay ahaayeen ay u kala galeen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa un dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii commissionku gelinaya hadday tahay waan u mahadnaqaynaa aan ku wargelinayna dhammaan taageerayaasha xisbiga iyo bilaabaya kuwa kalena jawaabtiisa gelinta sida ugu dhaqsaha badan commissionka haddii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum gudoomiye intaasna waxaa ka muuqata in ay afxiraad sameeyeen komishanka doorashooyinka Somaliland iyadoona la filayo in muxuu ahaayeen doorashooyinka